afar xirfadood aad baran karto 2024 oo lacag aad u fiican ka sameyn karto shaqooyinkan waxay yihiin ilaa wax ka sameyn kartaa lacag 80000 ilaa 100,000 ayaa ka sameyn kartaa xirfadahani si bilaash ayaa ku baran kartaa haddaad iga daawanayso YouTube-ka everything in my bio aadaysa haddaad iga daawanayso TikTok-gana video-gan waxa aadi kartaa YouTube-kayga aadi karto halkaas ayaa ka soo arki doontaa walaal soo dhawo magacayga waxa la yiraahdaa Daahir halka waxaan kaga hadlaynaa real estate investment fix and flip Airbnb arbitrage ama wax loo yaqaan side hustle ama wholesaling insha Allah soo dhawo haddaa arrimaha garanaynin website-kayga aadi kartaa saxaninvestor.com mid kowaad wax loo yaqaano artificial intelligence ama wax loo yaqaano AI soo saal la socotiin 2022 wax loo yaqaano company loo yaqaano OpenAI ama ChatGPT ayaa wuxuu soo saaray artificial intelligence oo wax walba ku qori karo wax walba ku sameyn karo literally every information adduunka uga baahneed oo halka ku heli karto daqiiqadana uu kugu soo saarayo so website-ka hadda kuwan OpenAI-gaas company walba ayaa furtay oo like Google uu kamid yahay Target uu kamid yahay Walmart Microsoft every company wuxuu isku dayaa inuu wax loo yaqaano AI-gaas uu isticmaalo sidoo shaqadiisa automation ugu sameeyo tan labaad wax loo yaqaano data science and analytics waaye data science and analytics kana waxa weeyaan kambaniyadu waxay wax loo yaqaano waxay u baahan yihiin wax la isticmaalo wax loo yaqaano data driven decision go'aanka ay gaarayaan number inuu noqdo ay rabaan go'aankaas maadaama ay rabaan inuu number noqdo so waxay u baahan yihiin qofka programka inuu barto oo loo yaqaano data science oo kamid yahay language-ka Python qof soo barto si numberada u shaqeeyaan soo qofteeda kambaniyada kale qof intaas maalintii la iibiyay intaas la sameeyay soo nidaam noocaas u baahan yihiin hadaa barato waliba kan ugu lacag badan waaye kan wuxuu kamid yahay almost 100,000 ku bilaabaysa tan saddexaad wax loo yaqaan cyber security waaye oo maadaama dadka internet wada isticmaalayaan dad waxay isku dayaan information-kooda qofka ama bangigooda ama hawlahooda inay soo qaataan lacagtooda halka ay ka xadaan isku dayaan si looga hortago dadka xirfadaha ay bartaan xirfadaas oo wax loo yaqaan network security ama wax loo yaqaan ethical hacking ama data protection so taasina aad baa lacag fiican laga sameeyaa ilaa hadda 2024 aad buu u fiican yahay almost up to 100,000 ka sameyn kartaa meelaha qaar tan kale oo hadda dadka isticmaalaya wax loo yaqaan digital marketing baa la yiraahdaa and e-commerce tan waxa weeyaan waa social media aad daawanayso kale waxa baranaysaa social media management baranaysa wax loo yaqaano SEO oo search engine optimization oo like dadka Google hadii aadan kala marka ka caadi raadiyeen sidii qofka ugu koreeya noqon lahayd ama wax loo yaqaan e-commerce strategist e-commerce kana waa website-adan wax product iibinaya waa for example Shopify jira Wix jira way fara badan yihiin all these companies then isticmaalayaan Shopify kala product lagu iibiyo kale Wix waxa doonta ku sameyn kartaa waa company oo website lagu sameeyo waaye laakiin Shopify kale product gelinaysa waa ku iibinaysa then waa advertise garanaysa oo promote garanaysa dadku wax ka sameeyaan millions and millions of dollars ka sameeyaan aniga soo aan leeyahay isticmaala jira oo horaan igu sheegan oo maleynaya ay ugu jirin lacag waa laga sameeyaa advertisement aan sameeyaa oo aan rangareeyo Facebook ads aan rangareeyo marka qaar TikTok ads aan rangareeyo oo product aan advertise garanayo lacag waa laga sameeyaa ilaa systemka sidoo u shaqeynaa fahantaa waaye haddaa rabto inaad barato sida real estate-ka u shaqeeyo like kamid yahay fix and flip Airbnb arbitrage ama wholesaling ama goal setting ama budgeting haddaa rabto website-keeda aadi kartaa saxan investor insha Allah halkaas ay ka soo qaban kartaa haddaa rabto inaad guri iibsato waxay ka soo qaban kartaa website-keyga saxan realty إن شاء الله ويسلام من بدن خرب بيرجعين